ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Danaba oo saacadihii la soo dhaafay howlgalla xooggan ka sameeyay xuduudka gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud ayaa halkaas ku burburiyay fariisimo badan waxa ayna ka laayeen maleeshiyad fara badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafay howlgalla kala duwan ka waday gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa ku laayay maleeshiyad fara badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. howlgalladan ayaa qayb ka ah wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee la doonayo in laga ciribtiro dhammaan baagiyiga Soomaaliyeed. howlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa hakad ku yimid bilihii ugu dambeeyay kadib markii mowjado siyaasadeed oo kala duwan ay soo wajaheen madaxda ugu sarreeya ee dalka oo qayb ka ahayd xadgudubkii dowladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay badda Soomaaliya iyadoo heshiis sharci darro la gashay maamulka Somaliland dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo afartii cutub ugu horeysay ay si aqlabiyada ku ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. howlgalladan xooggan oo iska kaashanayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwa daraawiishta Galmudug ayaa la filayaa in saacadaha soo socda laga xoreeyo tuulooyin iyo deegaano fara badan oo kooxda khawaarijtu ay kaga dhumaaleystaan gobolada Mudug iyo Galgaduud.